waana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah loolanka wasiirada cusub oo xoogeystay iyo xalinta boosaska qaar oo lagu guuleystay aadan madoobe oo qayb ka noqday qandaraaska qaadka dalka Kenya lafta gareen oo ku dhawaaqay wada hadal uu la galayo xubnaha mucaaradnimada uga dhawaaqay Muqdisho iyo ciidamada Itoobiya oo duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gado qodobada waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubal News fadlan ku soo biir janalkan oo qayb ka noqo saaxiibada ku xiran ee sida maalinlaha uga hela wararka joogtada aan ku baahinaa aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkan oo sii share gareeya asxaabtiina laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan xogo kala duwan waxa uu ka soo baxaya liiska magacaabista golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya oo lagu wado saacadaha nagu soo aadan in la shaaciyo isla qabsigii ugu xooganaa ayaa ka taagan qaar kamid ah boosaska wasiirada inkastoo inta badan wasiirada xukuumadda Soomaaliya liiskooda uu diyaarsan yahay muran uusan ka jirin balse waxa la sheegayaa in haatan dood ugu adag ay ka taagan tahay kursiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay xalinta boosaskii kale ee muranka xoogan uu ka taagnaa waxaana kamid ahaa kursiga ay leedahay beesha mursade kulan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la qaatay xildhibaanada beesha mursade oo hore u suluugsanayeen xulashada madaxweynaha ee xubinta golaha wasiirada ku matali doono beeshaasi oo xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse ay u qorsheeyeen xasan macalin ayaa jira isfaham laga gaaray kulankaasi qabsoomay ayaa meesha looga saaray saluugaasi iyadoona la soo warinayo inuu is afgarad ku soo dhamaaday kulankan ayaa waxa qayb ka ahaa xildhibaan hore xasan macalin oo lagu wado inuu ka mid noqdo golaha wasiirada la magacaabi doono ahna qofkii diidmada ay ka timid markii horeba ujeedka kulankaasi iyo kuwii la midka ahaa ee maalmihii dambeba uu xildhibaanada la yeelanayay madaxweyne xasan sheekh ayaa ahaa sidii xildhibaanada loogu qancin lahaa golaha wasiirada lasoo magacaabayo oo codadkooda kalsoonida ahna u sii lahaayeen sidoo kale waxaa jira kuraas kale oo dooda ugu adag ay ka taagneed gaar ahaan dood ka timid guddoonka golaha aqalka sare iyo kan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka oo dhowr mar ay soo fadhiisteen xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse ayaa dood adag waxa ay ka yeesheen matalaada beelaha digli mirifle in gudoomiyuhu la tashi lagala sameeyo xubnaha ka mid noqonayo golaha wasiirada Aadan Madoobe ayaana doonayay in laba shakhsi oo wato lagu soo daro liiskan balse boosaskaas oo hore ba xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse shakhsiyaad ugu qorsheeyeen ayaa dood adag ka dhalatay balse ugu dambeyntii waxa la isku afgartay in Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu ka tanaasulo xubnihii uu watay taa bedelkeedna saami qaybsi weyn laga siiyo qaadka dalka Kenya laga keeno xogta ayaa cadeynaysa in gudoomiyaha golaha shacabka saami hoosaad laga siiyay dhaqaalaha laga helayo jaadka mirooga si uusan gorgortan ugu galin dhismaha golaha xukuumadda iyo ansixinta helida saami hoosaadkan ayaa kalifay in Aadan Madoobe ka tanaasulo laba xubnood oo uu doonayay in golaha wasiirada lagu daro jaadka waa mashruuca ugu weyn ee dhaqaale kaas oo ay dhinacyo badan ku leeyihiin sanadkii ayaana lacagta laga helayo waxa lagu qiyaasaa inay dhan tahay ku dhawaad $50 milyan sidoo kale dooda ugu adag ee xubnaha golaha wasiirada sababtana dib u dhaca maadaama shalay galab lagu waday in lagu dhawaaqo ayaa ah booska xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya wararka laga helayo madaxtooyada Soomaaliya ayaana sheegaya in ka hor shaacinta wasiirada uu kulan gaar ah u bilowday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha kaas oo qaatay saacado badan sidaasna dib u dhac uu ku yimid xogta la helay ayaa sheegaysa in sababta keentay dib u dhac ku dhawaaqista golaha wasiiradu ay tahay iyadoo go'aankii ugu dambeeyay laga gaarayo xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya labada qof ee xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka marba qof lagu qoray ayaana kala ah maamulihii hore ee Dahabshiil qaybta koonfurta Soomaaliya Xasan Cawad iyo xildhibaan Biixi Iimaan Cige oo markii ugu dambeeyay ku soo baxay liiska golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare waxaa hore loo xaliyay xil wasiir oo ay lahayd beesha uu ka soo jeedo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare waxaana markii ugu dambeysay taagnaa arinta ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo uu talo ku leeyahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka oo la sheegay in dooda waqtigii dambe uu ku soo biiray Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaana madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse ku cadaadiyay inay talo ka siiyaan magacaabista xilkaasi maadaama uu jiro shakhsi uu doonayay in xilkaasi loo magacaabo markii uu ku soo biiray dooda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa soo kordhay shakhsi saddexaad oo la filan karo inuu ku soo baxayo xilkaasi
hore xilkan laba midkood ayaa loogu saadaalinayay kuwaas oo kala ah maamulihii hore ee dahabshiil qaybta koonfurta Soomaaliya Xasan Cawad iyo xildhibaan Biixi Iimaan Cige balse haatan waxaa ku soo biiray shakhsi saddexaad oo ah Saalax Axmed Jaamac kaas oo la filan karo inuu ka soo dhex muuqdo liiska golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre la filayo inuu ku dhawaaqo saacadaha nagu soo aadan ee maanta waxaana xogaha kale ka heleen xarunta madaxtooyada ay tilmaamayaan in haatan isafgarad laga gaaray inta badan liiska golahaasi isla markaasna waqti waliba la filan karo in lagu dhawaaqo wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee la filan karo inay liiskan ka soo dhex muuqdaan ayaa intooda badan ah xisbiga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh uu hogaamiyo ee UPD waxaana liiskan la filan karaa inay ka soo dhex muuqdaan xubno ay ka mid yihiin Axmed Macalin Fiqi xildhibaan Cabdirasaaq Cumar xildhibaan Maxamuud Beene xildhibaan Dr. Cali Xaaji Aadam Xasan Macalin xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur Axmed Xasan Maxamed Sheekh Doodish Abshir Cumar Haruushe xildhibaan Saciid Daahir xildhibaan Firdoos xildhibaan Axmed Taajir Jaamac Xasan Khaliif Cabduqaadir Maxamed Jaamac madaxana furan Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur Axmed Madoobe Nuunow xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xasan Eelay Faarax Cabduqaadir Maxamed Khadiija Maqsuumi Daawud Aweys Saalax Axmed Jaamac xildhibaan Biixi Iimaan Cige iyo Xasan Cawad waxaana xubnahan iyo xubno kale laga filan karaa liiskan golaha wasiirada cusub ee la filayo maanta in lagu dhawaaqo geesta kalena lafta gareen waxa uu shaaciyay sida uu ka yeelayo xubnaha Muqdisho uga dhawaaqa isbahaysi isaga ka dhanka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in wada hadal nabadeed uu la yeelanayo siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkaas ee isku hayaan hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wada hadal xilligan dhaxmara lafta gareen iyo siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh reer Koonfur Galbeed ayaa waxa la fahansan yahay in uu wax uun ka tari doono xiisada siyaasadeed ee ka taagan maamulkaasi lafta gareen ayaa balanqaadkan ku wargeliyay ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan oo kula qaatay magaalada Beledweyne Cabdicasiis lafta gareen waxaan soo dhaweynayaa balanqaadkii uu sameeyay madaxweyne Cabdicasiis ee ahaa in isaga iyo siyaasiyiinta kale ee miisaanka leh ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee wada hadal nabad ah ku xarin doonaan wixii khilaaf ah u dhaxeeya ayuu yiri James Wan waxaa muhiim ah in khilaafka siyaasadda lagu dhameeyo wada hadal iyo in xuriyatul qowlka la xaqiijiyo sida uu dhigayo dastuurka ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ayuu sii raaciyay hadalkiisa James Wan oo ka hadlayay balanqaadka uu sameeyay lafta gareen arrintan ayaana imaanaysa xilli siyaasiyiin ka soo horjeeda ay ku dhawaaqeen isbahaysi siyaasadeed oo loogu magac daray golaha samata bixinta maamulka Koonfur Galbeed isbahaysigan ayaa waxa ku midaysan siyaasiyiin reer Koonfur Galbeed oo u badan madax hore xildhibaan wasiiro siyaasiyiin kale iyo dhalinyaro kuwaas oo dhammaantooda ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed xubnaha ka soo muuqda isbahaysigan waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamulkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka Cabdiwali Ibraahim Muudey wasiirka haweenka Xaniif Xaabsade iyo xubno kale golahan ayaana si weyn uga soo horjeeda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo hore siyaasiyiintan ugu adeegsaday awoodiisa kana reebay tartankii doorashada baarlamaanka Soomaaliya waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa ciidanka Itoobiya duqeyn xoogan ay ku garaaceen gobolka Gedo wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka dowladda dalka Itoobiya ay duqeymo dhinaca cirka saacadii ugu dambeeyay ka geysteen deegaanka Qooney ee gobolka Gedo deegaanada duqeynta ka dhacday ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay la sheegay inay dhaqdhaqaaq ka wadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo waday abaabul ay ku doonayaan inay ugu gudbaan meelo ka mid ah dowladda deegaanka Soomaalida dadka deegaanka Qooney ee gobolka Gedo ayaana sheegeen inay maqleen dhawaaqa duqeynta ay geysanayaan ciidamada Itoobiya balse aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay deegaankaasi ee hoostaga gobolka Gedo ayaa xuduud la leh gobolka Bakool waxaana dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dagaalo culus ka dhaceen deegaanada xuduuda ee gobolka Bakool iyo dowladda deegaanka Soomaalida galbeed kaas oo u dhaxeeyay ciidamada gaarka ee Liu Booliska iyo ururka Al-Shabaab
guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen Hubaal News fadlan daawada janalkan qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada ugu soo xirmaya aragtidaada halka oo sanoogu reeb muuqaalka la sii wadaaga asxaabtaada laagtaadana waa inoo muhiim waana ku mahadsantihiin daawadayaal la socodka warka janalka Hubaal News.